حفظ قرآنك ولا شيء ذا هجاكسن سي أظهر مركا وقارتو قب هجاكسن. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دما ولا لها قيادة أصحابنا نجعل هاي جنب كيان واني وعي جرينكو حرام ولا ليال سودو هذا دما ولا لها يقعسون سودوين يا حد الله سودو هذا قام فرنك سودو هذا أخياري ما أنتو حربا قصة هذه يا بيسينا إذا شيء هرتا قصوين كان جعل هذين نقطة أخرس هذين نقطة ما رح تلاقيه سبا marka maalin aan waxa akhrinayo waxaan qisiin akhrinayo waxa akhriyo qisa aad iga yaabisay marna si markii loo fiiriyana fani ah si kale markii loo fiiriyana uu cashir ku jiro qisadan waxa ku saabsan waxay tahay wiil yar oo dhalinyaro ah wuxuu ahaa mid aan kala haad jecleen ogna hordad badan ama sidaanaba intaana badan intii hurdada ku daahdo waxa soo wada hurdada inay seexdaan ka daahaan ma jeclin inaan kala hno marka wiilkaaniiti marka ma jecleen inuu aruurti ka laho inuu iskuulka xaadiro inuu meelna tago marka hooyadiina waxa la dhahay waxay la jecleed inuu bir ka maalin noqdo nin taajir oo qani oo dhaqaale laho isagana wax istaro dadkiisana wax taro bas wiilkii marka saasuu ahaaba hooyadii markuu kari weysay in aruurti ka lahaada maaragta uu ka laho bay macallinkii iskuulka u tagtay markaas wuxuu ku tiri macallinow wiilkaani ma jecleen inuu aruurti ka lahee bal wax undhe adigu wax uga sheekeeyo bal qanci hade oo faa'iido ay leedahay ban aruurti la soo kala uga sheekeey waa intaas oo bal adigu ku dhageystay macallinkii markuu wuxuu yiri wiilo wuxuu yiri dhageyso waxaan rabaa wiil inaan qisa yar kaaga sheekeeyo qisadaas markaan kaaga sheekeeyo wuxuu yiri wixii aad ka fahantid baad ii sheegi doontaa ma isku raacni waa isku raacnay waa kadib macallinkii wuxuu ku yiri wiilkiira wuxuu ku yiri waxa jiray uu yiri laba shimbirood midna wuxuu yiri ubad bay haysatay labadooda horta wuxuu yiri ubad bay haysteen marka wuxuu yiri mid aroortii wuxuu yiri soo kala lahdaa ubadkeeda wuxuu yiri ay waxay cunaan nasiisaa buu yiri xasharaadka yarka oo intee meelaha ka soo hesho bay aroortii ubadkeeda wax siisataa iyana wax bay cuntaa tii kalena wuxuu yiri hurdada ku dahdaa ayana quud ma hesho buu yiri ubadkeediina quud ma hesho bal maxaa qisada ka fahantay marka wuxuu yiri qisada waxaan ka fahmay buu yiri subxaanallah astaghfirullah alazim waxaan ka fahmay buu yiri xasharaadka aroorti soo kala buu yiri inay shimbiraha quud noqdaan baa qisada ka fahmay buu yiri ilaahayow nacaf waa qaab fara badan oo dad badan oo maanta nool ay u fakaraan adu qaab wax ugu sheegaysaa iyaguna qaab kale u fahmayaan marka waxaan marnaa qisadaasaytii inay xogaa fanina ahayd cashirna uu ku jiro waxa muhiim ah marka wax lagu sheegayo in isku daydid qaabkii loo wada ina u fahantid laakiin haddaad qaabka loo fahantid waxay la tahay kugu qaloocanaysaa waa maasantiin